السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان سلام يا أصحاب تقاليق عمال بدوني كجوكتان ولكن مهند هبي أو جعليستي عوضا إنه إذن لو ذاقو قصو وليبا آدي مروق بدن dad fara badan ayaa waxay soo dhigeen qisooyinka maxaa noogu soo gudblaada allah iyo kulli xaal cabada waxa idin soo diyaariyay qiso jaclaystay waliba inaan idin la wadaago qisada inta aan idin soo fasirin asxaabta channelka cusub waxaan dhihi lahaa fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran YouTube channelkayga please subscribe saar gambalaalka riix si aad u noqoto daawadihii ugu horeeyay isku soo noqod wanaagsan asxaabta qaaliga ah qisada inta aan idin soo gudbin waxaan ka codsan lahaa ugu horeyn in aad videoga like saarto kadib aad qisada daawato okay aan idin bilaabo qisada soo daawada kadib aan isku soo noqonaynaa maalin maalmaa kamida walaalayaal waxaa dhacday laba wiil ayaa is ag fadhisay waxayna wada fadhiyeen meel lagu leedsado oo lagu nasto ayagoo halkii fadhiya ayaa halkii waxaa soo maray wiil asaguna imaaday xadiiqadaas si oo ugu nasto waxaa ka dhacday lacag labada wiil mid ka mid ayaa lacagtii gacantii ku dhigay walaalayaal kadib wiilkii lacagtii gacanta ku dhigay wuxuu raba walaalayaal wiilkii lacagta ka dhacday inuu u yeero si lacagta uu u siiyo laakiin muxuu u yeeraa wiilkan ayaa fududaaday agtiisa fadhiyay wuxuu ku yiri tug ayaa taa maxad lacagta ugu dhagan tahay qofka ay ka dhacday waadba u jeedaaye maadsiidid markaasuu wiilkii lacagtii ka qaaday wuxuuna u geeyey wiilkii lacagta lahaa wiilkan kale waxa uu aaminsan yahay wiilkii halkii fadhiyay inuu lacagtii ka jeebsiibay markaasuu ku yiri markaa xagga soo maraysay lacagtan ayaa wiilkaas ka jeebsiibay asaga markay lacagta ka dhacayday wiilkan uma uusan jeedin balse wuxuu arkayay wiilka markuu lacagta gacanta ku hayay markaasuu ku yiri wuu ka jeebsiibay wiilkii lacagtiisa jeebka ayuu gashtay wuuna iska baxay wiilkii kale booskiisa ama positionkiisa ayuu ku soo noqday weliba asagoo si xun u eegayo wiilkii kale asxaabay wiilkii kale waa cuuriyaan lacagta markuu dhulka ka qaadayay wiilkii kale ma uusan awoodin inuu u geeyo lacagtiisa maxaa yeelay waa cuuriyaan wiilkaana asagoo hubsan ayuu wuxuu ku yiri tuug ayaa tahay lacagta waaba haysaaye maasiidid asagana inuu siiyo wuu rabay laakiin ma socon karo oo ma istaagi karo maxaa yeelay sida idiin muuqataba asxaabay inanku waa cuuriyaan bini'aadankoo dhan ayaa waxaa ka samaysan imtixaan maxaa yeelay asxaabay wiilkan hadda waxa uu sameeyey waa khalad hadduusan degdegi lahayn oo si tartiiba ula hadli lahaa waxba ma halaabi lahayn asxaabta laakiin wuxuu soo xasuustay habka ay lacagta u dhacday asagana ay gacantiisa u gashay dib ayuu u noqday wuxuuna ogaaday wiilkii inay lacagta ka dhacday kadibna wiilkan lacagta uu dhulka ka qaaday uusan ka jeebsiibin asxaabta qaaliga ah aynu iska ilaalino degdega maxaa yeelay degdegu ma wanaagsano aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada aad daawateen videoga waxaan idinka codsan lahaa inaad faafisaan videoga ama aad share garaysaan okay asxaabta qaaliga sidan filayo aad iyo aad buu videoga ku cajabiyay fadlan ha ka baqiilin inaad like saarto mar kale videoga kulley waad dhamaysatay waxaan ka codsan lahaa inaad comment ahaan igu soo qorto videoga waxaad adigu ka faa'iiday wiilkii aad buu u degdegay lacagtii wiilka dhulka ayuu ka qaaday inuu siiyo wuu rabaa laakiin ma awoodo wiilka lagu hulayaa ma awoodo okay wiilkii lacagtii markuu soo qabtay inuu siiyo wuu rabaa laakiin ma istaagi karo wiilkii asagoo wiilkii u yeerayo kan kala soo degdega ma wanaagsano fiir sida uu soo degdegay inuu u yeero si lacagta uu siiyo laakiin muxuu u yeeraa wiilkan ayaa fududaaday agtiisa fadhiyay wuxuu ku yiri tug ayaa taa maxad lacagta ugu dhawaaqay asxaabta qaaliga degdega ma wanaagsano ha degdegin weliga okay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada aad daawatay videoga waxaan ka codsan lahaa inaad videoga like saarto subscribe saar YouTube channelka haddaad ku cusub tahay gambalaalka riix si aad u noqoto daawadihii ugu horeeyay daawada video walba aan soo geliyo commentiga soo bixi share garay asxaabta qaaliga ah